السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سودو هذا برنامج كنا مانتا إن شاء الله تعالى شيكا نوع عصب معها شيكادان هوري أي وجرتي waxaan horay ula soconay in maxkamado fara badan dalkan Mareykanka ku yaala oo maxkamado federaali ah in ay iska daba shaqeynayeen oo qolyahan businesska dadka ganacsatada yaryar ah oo small businesska ah in ay soo report gareeyaan dadka iska leh ma beneficiary ownership information reporting sharcigii ka soo baxay Congress-ka dalka Mareykanka oo ahaa Corporate Transparency Act oo ahayd in qof kasta oo ganacsi ku leh dalkan Mareykanka laga rabo in uu soo buuxiyo reportka dowladda federaalka ah uu siiyo sharcigaas waxa uu aaday maxkamado fara badan cabaar ayuu isdaba socday marba judge ama xaakim federaali ah oo dalka Mareykanka ah ayaa hor istaagayay marba qolo hor leh baa waxay xariisanayeen wax la yiraahdo injunction marka wuxuu gaaray hataa Supreme Court-iga maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka la isla gaaro oo iyaga naftooda inay go'aan ka gaaraan bay noqotay waxa kale oo iyadana dhacday in maxkamad ku taala Texas la yiraahdo Fifth Circuit Court ay ka xareysteen qolyo inay ku joojiyaan sharcigan laakiin waxa hore idinku sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay oo federaalka ah in ay hirgeliso oo ay dhaqan geliso oo ay meel mariso sharcigan oo lagu qasbo dadka businessyada leh in ay soo buuxiyaan maadaama department dhan ama waax dhan ay u sameeyeen waaxdaas oo iyadu qaabilsan in ay ogaato ganacsiyada yaryar oo dadka aan sida fiican ganacsiga u lahayn oo maartay dadka waxyaabaha qaladka ah ku gada oo lacagtana ku qarsada inay business leeyihiin oo aan shaqeynba haday rabaan dadkaas in laga daba tago oo meel la saaro ayaa ujeedkooda ahaa marka waxay yiraahdeen waxaan xooga saari doonaa qolyaha aan ka shakisanahay ayaa xooga la saari doonaa inay soo report gareeyaan businessyada qofka iskale oo ka faa'iida sidoo kale waxay sheegeen in qolyaha kale haddii aad samayso misrepresentation ama aad businesska aad report garayso si qaldan aad u report garayso waxa ay sheegeen in lagu maalinkii haddaa horta report garayn weyso oo aad businesskaaga soo sheegi weyso waxaa lagu ganaaxi karaa $606 maalinkii ilaa $10,000 so maalinkii $10,000 kugu gaarto waxa xabsiga aadaysaa bay yiraahdeen 2 sano oo prison ah marka dadka saa ugu dhaaranayaan waa laba nooc qof businesska soo report gareyn waayey iyo qof si qalad ah u soo unauthorized disclosure si qalad ah oo wax qalqalday adiga isdaba marin sameeyey oo businesskiisii aan si toos ah u represent garaynin qofkaasna waxa waaye waxay yiraahdeen ganaaxaas ayaa ku dhacayo marka war idinku daalinin sharcigaas ayuu ahaa maalinba meel bay taagnayd maxkamad hadda Supreme Court-iga January 2023 decision bay ka gaartay go'aan McHenry nin la yiraahdaa la aaday Texas Top Cop Shop kuwa la dhahaa la aaday maxkamadda marka laakiin waagaas waxay xukuntay maxkamadaas in la lift gareeyo nationwide injunctionkii sharcigii uu soo rogay judge-ka Texas joogay oo lagu challenge gareeyay ama looga hor imaaday in la xareeyo BOI-ga so sharcigaas hadda wuu burburay maadaama judge kale uu shalay oo Arbaca ah bishan February ay ahayd 19 uu maaragtay maxkamad kale ay xukuntay in dib loo soo celiyo so deadline cusub ayaa la sameeyey oo xilli cusub ayaa la sameeyey deadline kaasna waxa uu noqonayaa baa la yiri
bisha soo socota March 21 2025 ayuu deadline ka noqonaya haddii kambanigaaga waxay yidhaahdeen horey lagu siiyey extension ilaa bisha April oo kale sababo la xiriira disaster ka dhacday stateskaaga iyo wax noocaasa taas dambe ayaa raacaysa adiga oo deadlinekaas dambe laakiin dadka badankood ganacsiga yar leh waxaa laga rabaa bisha March 21 2025 in ay soo xareeyaan so time badan ma haysatid almost waxaa hadda ku dhiman kaliya 1 month wax ka yar baa ku dhiman like maybe I don't know 3-4 weeks baa ka dhiman deadline-ka la xareynayo sharcigan waa la soo celiyey March 21 ayaa laga dhigay deadline-ka ugu dambeeya oo laga rabo business kasto in uu soo xareeyo businesskii aan soo xareyn waa idin sheegay maalinkii waa $606 oo ganaax ah iyo ilaa $10,000 iyo 2 sano oo xarig ah baa la sheegay weli waxaa dhiman maxkamaddii appeals court-ka ahayd Louisiana ku taalay oo ay la aadeen qolyihii marka hore ku luusgareeyay Texas oo rabay in maxkamaddaas la sii aadaan maxkamadda inay la sii aadaan bay ku talagaleen so maxkamaddii appeals court-ka ahayd ee ku taalay Louisiana weli ma soo gabagaboobin laakiin ayada nafteeda waxaa loo balansan yahay bisha 4 haddii marka ayadana ay xukunto sida aan jeclahay u janjeerto dhanka dowladda xaggeeda haddii marka ay luusgarayso maxkamadda oo maxkamaddaas maaragtay qolyahan kale oo la challenge gareynayo dowladda ay luusgareeyaan oo ay maxkamaddaas xukunto in la buuxiyo deadline-kii haddaa sugtay wuxuu ahaa March 21 haddii bisha 1 April 1 ay soo baxdo in la xareeyo laisku qasbo already violation baa ku jirta waa lagu soo dhaafay xilliga aad buuxin lahayd mid kale oo aad muhiim u ah baan rabaa inaan idinla wadaago don't forget inaad share garaysaan horta videogan aad gaarsiisaan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo dalkan Mareykanka jooga oo ganacsiyo yar ku leh ama dukaan yar ku lahow maaragtay Carmel Mall ama truck owner operator ahow ama ganacsi yar oo clean ha ku furaado ama garage yar lahow adiga all the businesses or small businesses ka ah oo incorporated ka ah iyo LLC-yada oo shaqaaleeya 20 qof in ka yar which Soomaalida badankeed ganacsigooda uu soo hoosgalayo waxaan rabaa inaan hal arin idinka digo website-yo waxaa soo baxay fara badan oo waan ku xareynaynaa ku dhahayo oo lacaga ka qaadayo website-yadaas waxay qaataan almost hadda waxaan arkayay $160 $159.99 let's file the BOI information for you waxaasay qorayaan ha ku sirmina BOI reportingka waa free website-ka finsen.gov oo linkiga hoose aan idinku siin doono insha allahu tacaala ayaad ka buuxinaysaa waa free all you need waxa waaye just magacaaga addresskaaga businesskaaga EIN numberkiisa in aad geliso iyo in aad ku qorto marka EIN-kaaga geliso existing company baa leedahay haddii January 1 2024 ka hor la sameeyey haddii ka dambe la sameeyeyna waxa waaye ama hadda dhow aad samaysatayba business cusub aad furatay 30 days baa haysataa inaad ku buuxiso new aad leedahay existing company already information-kaaga Secretary of State-ka waa inay ka helaan marka EIN-kaaga geliso waa very easy waaye self-explanatory iyada sharaxayso website-ka markaa gasho just name-kaaga address-kaaga EIN-kaaga company name-kaaga intaa markaa geliso next baa leedahay finally waxaad samaynaysaa waxaa ku upload garaynaysaa picture ID-gaaga ama qofka iskale businesska ID-giisa ama passportkiisa ayaa ku upload garaynaysaa so ama ID-ga ama passportka ku upload garaynaysaa waa very easy so qof yuu lacag kaa qaadanin lacag waxaa soo baxay kambaniyadaas aan idin sheegayo
$160 $200 waxaasaan qaadanayna kugu xarinayna bay ku leeyihiin. So don't fall into that trapkaas ku dhicin sababtoo ah waa khasaaro waxa aad samaysan karto oo easy ah haddii aad garan weyso ama ay dib kugu noqoto qof la kaasho laakiin waa wax iska aad u fudud and I'm sure everybody will garan karaa inuu first name kiisa last name kiisa company EIN number kiisa iyo companyga magaciisa intuu ku qoro ID-giisa uu ku upload gareyn karo website-ka. So qolyahaasna waa jiraan dadka la share gare oo si aysan ugu dagmin in lacag laga qaato oo website-yadaas soo baxay kuwa hataa waxaa soo baxay tuuga ah oo website-ya samaystay oo raba in ay bahar ku geliyaan ama information-kaaga ay xadaan. So be careful. FinCEN.gov waxay u taagan tahay Financial Crimes Enforcement Network baa la yidhahdaa. FinCEN waa dowladda Maraykanka way samaysay waana horena idinku sheegay way ka go'an tahay in arrinkan ay fuliso oo ay dabagasho oo email fiican ka gaarto. So that's why maxkamad kasta oo federaal ah oo lagu challenge gareeyo u soo saarayso in dowladda ay dhankeeda ay u janjeerto oo dowladda ay la jirto kuwii challenge gareynayana ay lose gareeyaan. So baashaan dhowr jeer ay soo noqnoqotay finally waxaan u malaynayaa waxayna u eg tahay in dowladda ay ku guuleysan doonto. Only hadda one court case baa u harsan oo kii Louisiana oo Court of Appeals ka ahaa kaas kaliya ayaa u harsan oo dee maxkamadda racfaanka kadib markii ay maxkamadda hoose ku lose gareeyeen ayay waxay ka qaateen maxkamadda waxay aadeen racfaan ayay ka qaateen appeal ayay doonteen. So Court of Appeal kaas ayaa laga warsugayaa laakiin aniga ahaanteyda haddii aan tala idin siiyo Soomaali Maxamed waxay ila tahay in aad buuxisaan reportingka aad samaysaan because by the time maxkamadaas ama ay lose gareeyaan ama ay ku guuleystaan it's too late. So March 21 ayaa laga dhigay deadline-ka yuu ku dhaafin xaray wax ay kaa goynayso ma leh wax extra oo cusub oo laga helayo oo information oo dowladda ay ka helaysana actually maba jirtaba sababtoo ah dowladda already knows qofkaa tahay already knows EIN-kaaga way ogyihiin already know your name address-kaaga aad degan tahay iyo business-kaaga addresskiisa intaba way haystaan waa iska inti baan lahayd waa buubtay dooro xujay la jecel maaragtay la buubi laadahay waaye. So information waxaad ogtahay ma ku sheegaa camal waaye dowladda laakiin hadda dee marka hore Secretary of State-ka information-ka kaa hayay ka register garaysay business-ka laakiin hadda dowladda federaalka ahayd ayaa u soo dhigatay. So $600 a day ilaa $10,000 markay gaartana 2 sano oo xarig ah cid ka bixi karta oo aan garanayo ama diyaar u ah inay la dhilgarayso wax 5 minutes ku qaadanayo hatta 2 minutes actually 5 minutes maaha 2 minutes wax kugu qaadanayo in aad xabsi u aado $10,000 lagu ganaaxo dhibaato lagugu geysto iyo kugu dhicin. Sida ay sheegeenna waan idin sheegay dadka ay isha goonida u yeelan doonaan waa businessyada already ay ka shakisan yihiin in ay covert ay yihiin oo loo isticmaalo waxyaabo illicit ah oo xun maaragtay qof aan shaqaynin oo kale oo business account intuu soo furtay business magaciisa furtay lacagaha sida qaladan ku soo gala oo musuqmaasuqa ah uu account-ka ku shubto isagoo iska dhigaya inuu yahay legit business. So qolyahan waa qolyo indha furfuran maxkamad kastana way challenge gareynayaan. So March 21 in aad xarayso isku day haddii inta ka horeyso lagu qabto hadhow hay oran maaragtay waxba la ima sheegin haddaba waad ogtahay March 21 intaan la gaarin information-kaas xaray. waa mahadsantihiin waan salaamayaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like I said, don't forget to share the video, subscribe to the channel haddaan ugu cusub tahay, like and share inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullah.